إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت. سلطان كيقول سومالي لاند سلطان محمد سلطان عبد القادر إلهي هو نحرست إلهي هو نحرست إلهي دنبي سهداف إلهي دنبي سهداف إلهي جنة الفردوس هاجي وحكيت عسيدين يا غرق سومالي لاند عرورتيسي يا حاسسكيسي دمان رويس غير سلطان يا الشعب غير سوماليلاند geeridaan xadinta lahayd marxuumkana ilaahay ha u naxariisto innagana dhammaanteen samir yeemen haynaga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan joognaa aaskii marxuum suldaan maxamed suldaan cabdul qaadir ilaahay suldaanka naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay qabriga ha u nuuro suldaanku wuxuu ka soo jeedaa saldanada ugu weyn ugu faca weyn saldanadaha Soomaalidu ay leedahay ilaahay waxaan uga baryaynaa suldaanku wuxuu ahaa nin naxariis badan oo dhibirsan oo deeqsi oo faxala ilaahay astaamaha wanaagsan ee uu lahaa ha ku abaal mariyo dambigiisa ha dhaafo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo kulligan dariiqaas aynu wada haynaa maanta qofku wixii uu ahaa iyo magacii uu lahaa waxba uma tarayaana waxa wuxuu taraya ducadeena inaynu ducayno ilaahay dambi dhaaf u weydiino ilaahay naxariis u weydiino ilaahay u weydiino janno aan u weydiino inaguna aan cafino cibrana ay noogu sugnaato ah inaynu kulligan halka wada socono aan dariiqa marayno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay suldaanka naxariistii jannaha ka waraabiyo waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa marxuumka suldaanka inuu ilaahay qabriga u waasiciyo inuu ilaahay jannooyinkiisa ku sooro inuu ilaahay dambigiisa dhaafo waxaanu joognaa magaalada Hargeysa bartankeeda iskuulka Sheekh Cali Ismaan loo oran jiray ama Riis la yiraahdo saacadda hadda waa 12kii beertii suldaanka oo bartanka magaalada ku taalay oo bartana ayaa xabaashiisii laga qoday waa ka soo horjeedka tiyaatarkii weynaa ee Hargeysa area Muso Jaamac waxa isku yimid khalqi badan oo isugu jira labeentii ummadda Somaliland wufuud badan oo dadka afka Soomaaliga ku hadlaana waa imaadeen waxaan ilaahay ka baryaynaa laba ducuma meeshan taalo marxuumka dhintay in loo duceeyo mas'uulka xilkiisii la wareegayna in isna loo duceeyo marka ilaahay waxaan ka baryaynaa marxuumka dhintana inuu ilaahay inuu naxariisto mas'uulka xilka loo igmayana ilaahay inuu ku asturo arrinka culeyskiisa leh aakhiradiisana uu ku badbaado